La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa dacwad ka dhana guddiga doorashada ee heer federaal waxa uu gudbiyey maxkamadda sare ee dalka taasoo salka ku hayso go'aanka ay guddiga ka gaareen kursiga oo ka soo qaatay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Qareenka Fahad Yaasiin oo lagu magacaabo Zakariya Ismaaciil Nuur ayaa dacwadan oo ah mid maamul waxa uu gudbiyey maxkamadda sare waxayna kaga codsadeen inay baabi'iso go'aanka guddiga oo tilmaamayay in lagu laabto doorashada kursiga Hob 86 oo uu ku fadhiyo Fahad Yaasiin. Maxkamadda sare ayaa fariin ogeysiisa u soo dirtay gariiqaanka guud ee dawladda iyadoo sheegtay in xafiiska maxkamadda uu yaallo dacwad maamul oo ka dhana guddiga doorashada ee FID. Dacwadda Fahad Yaasiin waxaa maxkamadda sare la gaarsiiyey 7 bishan waxaana magaca dacwadaha laga dhigay Fahad Daahir Axmed oo ah magacii loo diiwaan geliyey markii uu isu soo taagay kursiga muranka u hareeyey ee Hob 86. In Fahad Yaasiin u dacwoodo maxkamadda sare ee dalka ama uu kiiska u wareejiyo dhinaca garsoorka ayaa loo arkaa in la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo uu wajahayo culays adag iyo xaalad jahwareer ah oo ka kaban la'yahay 5 sano oo meel la iska dhigay qaanuunka iyo dastuurka dalka. waxaa maanta Fahad Yaasiin dantu bedelay in dacwado hay'adaha garsoorka ayay leeyihiin dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya. waxaa muuqata in villa Soomaaliya dadaal kasta oo ay samaysay inay weysan tahay meel ay uga dhaqaaqdo go'aanka guddiga doorashada ee lagu joojiyey natiijadii kursiga uu ku fadhiyo Fahad Yaasiin. Gariiqaan sare Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar oo ah ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaan weydiiyey waxa uu qaanuunka ka qabo dacwadda uu gudbiyey Fahad Yaasiin iyo natiijada laga filan karo. كله وحن فيليا دعوة هذه دعوة نقول هي دعوة مامل وهي مامل وحلا ذا هفرع لو مرة إن لا لو بيو دعوة محكمة السرة دعوة إنه حويا تايوان ومركورة وعن وصبحة أو كقارن كرو أدمنستراتيفو ولي دعوة وحنا سعطان نتيجة أو سعطانكي وايو هفرع يهور أو كرسي نكى إسكالها يو ضدك إركض إسكالها عيال قلبي سفشر إميس كوفدين waxaan rabaa marka ugu horeysa aas inuu si sharci ku fadhiyo kadib uu ka qaadan karaa dacwo maamul laakiin kursi asaga markii horeba asal ahaanba uu san ku fadhin sharci oo la soo boobay oo dadka ergada iyo dadkii ka wada dhaxaysan wali cabanayo inuu wadana dacwo maamul u sii qaato waxaan filayaa waxbuu meel ku ogyahay minis gudoomiye maxkamadda sare oo meel ku ogyahay oo isleeyahay adigu favor ku siinaya ku xukminaya laakiin maaha si sharci marka goorma ay ahayd inuu qaato ma waxay ahayd markii dib loogu laabto doorashada oo go'aan soo baxo oo qof kale ku guuleysto amaba si uusan ku qanacsaneen go'aan u soo baxo markaas kadib mi ahayd dacwadda mise mar kale goorma way sharcigu wuxuu qabaa horta dacwo waxa laga hadlayo sixitaan way waxa laga hadlayo waxa way correction of administrative way means sixitaan doorashadii dadbaneed waayo marka hore tan fadhi aysan ku fadhin oo daafur looma gelin dacwada dadka iska lahaayeen ka maqnaay dadkii laga boobay asaga kaliya soo qaatay haddana asaga kaliya rabeen oo xalaaleysto guddiga federaalkan waxay leeyihiin dacwada hala fura lagu noqdo dadka iska lahaay dhammaan ha ka soo qayb galaan doorasho fura hala galo kursiga cidda ku soo baxda ha loo qaato iyo maya aniga soo xaday anaana xalaaleysanayo maxkamadda sare aaday haddaa idinkii diideen ujeedada waa intaas wey marka maxkamadda sare maxay qaadan kartaa go'aan noocee baa laga filan karaa meesha maxkamadda sare waxay qaadanaysa waa la wada ogyahay go'aanka maxkamadda sare asaa meesha geystay gudoomiyaha maxkamadda sare asaa meesha u magacaawday xeraalihii guud asaa geeyey waa tiimkiisa weeye haddii loo geeyo waa la garanaya waaba la wada ogyahaybo asaga favorkiisa la siinaa asaa loo leeyahay adiga iskale taas wey waxa asaga isku haleynayo laakiin taa waa qaladbo waa totally qalad dacwada waxaa la rabaa maxkamadda inay furan tahay inay daan furan tahay inay cadaalad ay ka soo baxayso laakiin maxkamadda ad ogtahay inaad adiga lagu siinayo favorkaada may qaataan dhinaci kale asaga oo kuraas uu ka soo qaatay may aadaan ayagana maamulka marka ma jira daraf kale oo dacwoon kara maadaama hadda waxa dacwad laga gudbiyay guddiga doorashada ma ayaga ayay tahay inay dacwoodaan ma qarankii dawladda laga rabaa inuu difaaco mise daraf kale ayaa jira oo aad aaminsan tahay inay ayagana gartaan wax ka geli karaan iyo dacwadda dacwo maamul markay dhacaysa sideeda waxaa rabaa gariiqaanka guud oo dawladda inuu ka soo qayb galo oo uu la dacweeyo guddiga khilaafaadka oo uu matalayo wakiil ka yahay gariiqaanka guud ayaa fiirinaya dacwadan xaq ma u leedahay in maamul ahaan loo qaado difaaci karaa ma dacwadan maxaa qalday maxay marka hore ahayd qareenka dawladda jooga oo gariiqaanka guud ah habraacaas in la maro habraacaas kadib gariiqaanka guud iyo waxa dacweynayo iyo nimanka uu dacwada qabsado